golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa maanta yeeshay kalfadhigoodii 13aad kalfadhigaasi oo ka qabsamay hoolka shirarka dawladda hoose degmada Gabiley kalfadhigaasi oo laga wada hadli doono horumarinta degmada Gabiley iyo ansixinta miisaaniyadda 2016 ilaa 2017 waxaana kalfadhigaasi maanta ay yeesheen golaha deegaanka degmada Gabiley ka soo xaadiray 18 mudane oo xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley ka tirsan iyo shirgudoonka golaha deegaanka degmada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi ogayaha fulinta dawladda hoose Cabdiraxmaan Nuur Bakor waxaana kalfadhigan maanta faahfaahin ka bixiyay duqa magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi 29 bishii 12aad 2016 waxay noo furmi doonaa kalfadhigeeni 13aad ee kalfadhiyada golaha deegaanka degmada Gabiley oo ay nooga furmaya hoolkeeni shirarka caadiga ah ugu horeyn gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka xildhibaanada golaha deegaanka iyo xogayaha fulinta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هذه كبه هذا علينا كصوت قبل كشركة. شديد طبعا حلبان هذا قلنا ديجان كه. دونا لبا قضب وحي كراي حلبان هذا سلا قرطان لو صدره. لبا قضب هو بدوح نقول دونا وربحمها قد هو صادق قلنا ديجان كه. يحاولوا يسوق قبتين تاينو كلام غنين. قضب كلامنا وحنا نقول دونا warbixintii miisaaniyad sanadeedkeenii 2016 xisaab xidhkeedii iyo falanqaynta iyo wax ka bedelista iyo ka doodista iyo ansixinta miisaaniyadda oo daraska miisaaniyadda 2017 waxaan rajeynayaa insha Allah inuu shirkeenaasi sida quruxda badan iyo jawiga wanaagsan uu ku bilaabmay noogu dhamaan doono insha Allah waxaan ka mahad celinayaa ka soo qaybgalka shirka علي إبراهيم الكعسة ورباهين تعالمية SBC مقالة Gabiley حرونة قبل كجبيلة.